السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوا صاحبيال ومركلي مقال كنا ما تحن قال دونا ما نشرح دونا ويب سايت بقول كيف بقول كان فعيا ديات هاي أرضي واللي بأرضي دوسكومتيراني ديات هاي أرضي دوكسيغا سردك تام سكندريجا ويب سايت كان وحو كان فعيا بقول كيف بقول وحو كعاون دونا ما دوين كذا دق كيميدين كيمستريجا فيزيكسكا يو ماتيستا dhammaanba calculationkooga iyo waxyaabihii ka shaqeyn u baahan wax walba step by step solution ayuu kugu samayn doonaa. haddii aad tahay arday dhigta dugsiga sare oo muuqaalkani kusoo gaadhay website-kana aad baratidood ogaatid runtii heerkaaga aqooneed wax weyn ayuu ka bedeli doonaa. muuqaalkanina wuxuu noqon doonaa mid aad iyo aad ku anfaca. haddaba ugu horreyn aynu guda galno muuqaalka. marka ugu horeysa haddaba website-ka magaciisa waxaa la dhahaa Wolfram Alpha. waxaan soo furan doonaa Google Chrome-keena ama browser-keena si aynu ugu qorno. sidoo kale Google-ka caadiga waad kaga qori kartaa qaybta searching-ga. markaad browser-kaaga timaadid waxaad ku qori doontaa Wolfram Alpha. sidaad aragtaan qoraalka aad u qori doontaa waxaa kusoo bixi doonaa website-ka midkan ugu horeeya aad ku dhufan doontaa wolframalpha.com ay ku qoran tahay. website-ka runtii waa website aad iyo aad u muhiima. haddaba sad ka aragtaan waxyaabo badan buu leeyahay balse inta ugu muhiimsan waa saddexda maado ee physics, chemistry iyo maths. haddaba halkan waxaad ku qori kartaa wax xalaaliyo waxaad u baahan tahay qeexitaana badanku uu kaaga soo jawaabi doonaa. haddaynu haddaba step by step u marno inuu say kala horeeyaan u sharaxno tan step by step solution waa maths ayaa iskale oo mid waxyaabihii maths algebradii, geometry-gii, statisticskii, calculuskii waxyaabahan badankooga qofkii secondary dhigtaa u arkay. markaa halkan ay ku wada jiraan. markaa iminka tusaalehaan haddaynu nimaadno inu xaggan hore kasoo bilowno tanoo kale haddaynu ku dhufano wakaa iminka wuxuu soo saaray 60 waan iska garanaa defor marka lagu dhufto 4-7 waa 60. step by step solution haddaad sii martidna wuu kusii tusi doonaa oo waa kan show all steps 7+7 4 toddobaad la isku geeyay. dawaalkan waa intii ugu fududayde mathista algebraduna soo garansan waa tan oo agasti waxyaabo la mid ah waa ka isagana ina siiyay jawaabtii. haddaad u baahan tahay iyadoo de stebyadii la maro dhan oo ku tuso waxaad ku dhufan doontaan meesha step by step solution. waxaad ku soo dhufan doontaa next step haddaad stepka labaad u baahan tahay. haddii kale u baahan tahay show all steps baad ku soo dhufan doontaa dhammaan stebyadii dhan buu ku tusi doonaa. soo kale haddaad u baahan tahay inaad qortid meeshan waxaa laga xiribtay ka bedeli kartaa. soo kale si aad u isticmaashid keyboardka yani laga yaabaa keyboardkan caadiga inaad ka weydo waxyaabaha qaar. keyboard ayuu leeyahay mathista u gaaro website-kani leeyahay oo meeshan baad ku dhufan doontaa. meeshan waxaad ka arki doontaa imika tusaalaan xididka ka saare oo kale buy oo kale waxyaabo badan ayuu bartani ku leeyahay. haddaad calaamada labaad ee ku xigto ku dhufatidna waa dhammaan wuxuu nagu tusi doonaa mathematicsta waxyaabaha uu ina tusi karo oo geometry-gii, calculus-to iyadna mathista qaybaha adag ka mid ah, statistics-kii oo iyadna mean-kii, mode-kii, medium-kii waxyaabihii la mid ah, numbers-kii caadigii. imika numbers-ka haddaan ku dhufano waad iska wada garanaysaa dawaan nambaradii caadigii, rational number waxyaabo badan. adu halkan waa bad wax kastoo maths ku saabsan meeshan baynu ka arki karanaa. tusaalehaan haddaynu statistics-ka galno waa mean-kii, mode-kii, medium-kii. tusaale ahaan imika meankaas baynu rabnaaba meanka more examples baad kusoo dhufan kartaa. imika mean iyo medium baynu tusayaa. medium kuwaa dee ka dhexda ku jira. mediumka imika haddaynu ku dhufano sad ka arkasaan trooyinka waxaa ku jira 102 ayuu jawaabtiina siiyey. haddaynu nidhaahno haddaba si kusoo baxday 102 oo step by step solution kusoo dhufano show all steps baa kusoo dhufan doontaa. horta marka hore wuxuu ku yiri first sort the list from smallest to largest. waxaad horta imika maths ma sharaxana balse waa de waxaan tusanaa un application-kan aad website-kan aad muhiim u yahay. ugu dambeyntii saas uu habeeyay ka dhexda ku jira ayuu tusay. runtii application-kan website-kan 100% waa muhiim. xisaabaadka halkan baad ku wada arki karaysaa, algebra, geometry-gii oo kale. adigu ay xisaab oo mathematics secondary lagu dhigto meeshan waad ka heli karaysaa. sidoo kale haddaba haddaynu mathista halkaa kaga gudubno iyo waxyaabaad uga baahan kartid waxaa ka mid ah unit and measures waa cabiradii iyo waxyaabihii buu bartani ku tusaya 120 mitir
ma rabnayn ku dheeraano adu application website kan markaad soo furatid adiga ayaa arki doona 100% inuu muhiim yahay toolkii iyo waxyaabihii weeyaan haynu si toos ah dab ugu gudubno halkana waa elementary math oo waa fractions iyo waxyaabihi la mid weeyaan haddaba aynu gudubno physics isagana physics waa kan oo waa xisaab physics ka soo aragteen ba qaybta secondary amba dugsiga sare waxa ku badan calculationada amba xisaabaadka xisaab kasta la ku tusaya saad soo saartay soo kale de search buu leeyahay aduu su'aasha kugu adkaateed weydiin kartid su'aalahan imika hadaynu mid kamid ah OHM slow calculator imka waxyaabina tusaya complete meeshan oo dhan baad ka arkaysaa voltage iyo waxyaabihi oo dhan step by step solution meeshu maray oo dhan ay ku tusi doonaa physics ku isagana waa waxyaabahaas oo dhan statistical physics adu qayb walba dugsiga sare lagu arko xitaa ka shaqeyn wax walba uu leeyahay oo meeshan ka saambad wada doonta ciwaan walba amba chapter walba qaybta sare ka qoran tahay hadaynu koos wadno de waa bada physical effects waxyaabahaas oo dhan soo kale isagna maadada saddexaad ee ugu muhiimsan ee dugsiga sare ku jirta website-kan Wolfram Alpha ayaa ah chemistry hadeen isagana ku dhufano waa kan imika how many elements in periodic table halka wuxuu noo soo saarayaa 118 element dhammaan elementida aad u baahan tahay ku sii tusi doona mid walba oo in ka badan buu ku sii tusi doona amba dhammaantood 118 ka kala ma oran baynu soo oran doona soo kale waxyaabo badan imika waa chemical elements ka hadaynu intaan qaybtan ciwaanka ka aragno chemical compounds ka ayaa jira soo kale ions ki curiyaashii chemical ku waa wax kasta oo physics ma ku saabsan maadada chemistry oo lagu dhigto dugsiga sare imika curiyaha carbon hadaynu ku dhufano wuxuuna tusayaa waxyaabihiisii oo dhan amba waxyaabaha curiyaha carbonka lagu yaqaano waxyaabuhu qabto waa chemicalku kaga jiro waa curiyaha sidaaseen barta ka arkano atomic symbolkiisu waa C atomic numberkiisu waa 6 adu curiyaha baahantan bad ku qoraysaa isagoo faahfaahsan buu ku kala dhigaya website-kan muhiimadiisa waxa garan kara qof dhigta dugsiga sare haddii aad dugsiga sare dhigatid website-kan aragtid runtii wuxuu ku anfici doonaa si 100% haddaba waxa dhici karta mararka qaar inuu meelaha qaar barow ku weydiiyaan bal lacag iyo waxyaabaha balse inta ugu badan website-kan waa free website-kan waxa la Wolfram Alpha haddii aad tahay arday dhigta dugsiga sare aad buu ku anfacayaa haddii kale lahayna u share garee muuqaalkan arday dhigta dugsiga sare si uu uga faa'iideysto website-kan muhiimka inaad aad uga faa'iideystaan filaya intaas ay kusoo gudbin doona muuqaalkeenan fadlan hadii boqoshada subscribe saar videogana like saar aad iyo dad maasanta